السلام الله عليكم أصحابتي ذا maantay waa barnaamijkii aragtida dadweynaha ee awada jecleedeen waliba maantay hee waa 3 mowduuc 200 oo kun markii aan madaxa gelino ayay noo bilaabmi doontaa inaan barnaamijka aragtida dadweynaha 3 barnaamij ka soo diyaarino ama 3 qodob ku soo qaadano laakiin hadeer maadaama sanadka cusub tahay 2021 oo ku macsalaameynayna hordhac ahaanna waa idin sii tusayaa haddii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigana fikirkaaga nurowaysaa kusoo dhawaada barnaamijka faahfaahsan maanta markii ugu horreysay barnaamijka aragtida dadweynaha waxaan ka sameynayaa 3 qodob maadaama aan xanuunsaday oo waqtigii barnaamijka ay soo diyaariyay uu dib u dhacay qodob dheeri ah idin kugu soo daray qodobka koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa kursi Soomaaliya la geeyay oo massage-ka loogu talagalay iyo waliba nin Cusmaan la dhaho Ozi oo saaxiibkay ah aad iyo aad baa u salaamaya oo loo daatay baan soo qaadan doonaa qodobka labaadna waxaan ku fiirin doonaa Mrs Djibouti oo lagu dhawaaqay oo loo daatay ayadana markeeda karbaash sidoo kale waxaan fiirin doonaa nin dhankaas iyo Facebook haystay oo muuqaaladiis aad loogu soo meeshin gareynayay ayaan isagana gacanta saari doonaa dabcan barnaamijka marka maadaama daqiiqadaha aad noogu yirihiin ifafaala kama sii bixin karno waxaan u guda galaynaa barnaamijka si toos ah bal muuqaalka ugu horeeya iyo kursiga Soomaaliya la geeyay ay isla daawano dhaxloon ma xadis iga dhigaysay wixii hadal lagu dhameeyay jacaylka dhameeyay dhaxloole waxaad iskaga dhagaysay wixii hadal lagu dhameeyay jacaylkaagaan dhameeyay Soomaali afaaraan ka aragtay marka Soomaali afaaraan ka aragtay karbaashkooda diyaar loo iskiya adigana waa ogtaa anigana ogahay maho qaybta comments-ka marka bal ninkii Cusmaan Ozi ahaa wixii lagu dhigay qaybta comments-ka mar fiiriyayna waaya commenti koobaad qooqa marka uu ka bato iska sidaan ruuxanti miya balaayo idin ruuxamays illa rabbuna waa fooshaan warraga ma fooshaan ardo waro idinka jaani si xataan uga yeeshaan everyone naga dhigasaan warraga ma fooshaan xaaladii alaabtan kursi massage-ka awaay marka jirka dhan waxa kugu dhaqdhaqaaqayaan oo adiga nidaam kala galay ma fahantaade massage waay xaalka jijay marka baasha fool ma gaar ilaa hadda intii la aragtay inuu bikri yahay oo wali uu sanaagta dab dareera dira iska bro ilaahay idinka ma galnay war iska bula gaari adoo wata xataa hadii ku arkaan adiga film waxa lagu saaraa waaya qooq miyaa laga dhaqay qooq miyaa laga dhaqayaa arqooq laba dhaqee meel cibaadeysta soonkan waa la badsada ama la guursada iska buray oo idin salaamaya waaya kaliya leefisa saartay alaabta qoftaas leefa saaran ama qofkaas leefa saaran iska maqli jirteen ninka wuxuu taagay ninkan kaligiisa leefisa saartay baabajay ma kugu dhax qabeysanayo xaalan nuxnuxsan ninka mar asoo isjijibinayo haduu soo duubo liftiyo qaadar waxa igu soo dhacay balaaya kugu soo Asfaanozio intaasna war xaqdar Allah kaaga dhigo intaasna war xaqdar Soomaali Maxamada way wada garanayaan waxa inay kursi yahay massage lagu talagalay laakiin ma ka yeelayaan Cusmaan oo afaaraan oo kala ma soo duubo Soomaali karbaash raaxada kaaga qaadaya bismillaahir rahmaanir rahiim way saaxiibkay Asfaanozio loo daatay intaas uma dhaafayo commentiyada inta kale wax way gaba ka dhaheena odaygu ma dheeraanayno waxaan markaan u wareegsanaynaa nin waayadan haystay social media
من المعجزات من المعجزات من المعجزات وياهي بل كوميديس كان راحة الله قاضي بل قيبت كوميديس كان أقدرنا ويا كوميدي كوبات سو دو معانتو كوميدي انك واي waa kana dumaro qofka haduu wada khaldan soo gal xataa waa la soo celiyaa war naga laabal dhaha mideeda kale macaantada inta u socotaa barba xamdaa waa barateen gabadha waxay taagan tahay bar iyo dheeraad baa basma ah ilaa magaceeda basma lahaay faaraxyaalow walba hadaad lifti soo qaadanaysaan sida wiilkaan oo kale kuwiina quruxsan noo imaadaan annaga nooma imaanin nimankiina waa ka soo tagtay adaa og meesha aaday wallahi isaga og iyo billaah iyo tallah inkar allah ku rida ma dhaha marka ay nimanku leeyihiin dumarka badan ileen kuwaan nagu xisaabayaan oo lifti soo wada qaatay alla qaadku si isleeyahay hadaan qabiilka dumarka nahay codad ma naqaan welcome inta u soo dhaweynaysan in rasuulullah ina iska soo saartaan iska soo ceerisaan loo baahan waxaan kale yaa rasuulullah yaa xayullahi jamhuuriyadii u ka tirsanaaba asagoo la ogeyn habeen saq dhex 6 saac habeen mu soo dhuntay miska soo dhaweysanaysan horta dumarka ragga noocaan oo kala marka wax laga sheego mid walba inaad ka xuntahay waa macquul ku leedahay been ma welcome macaantii soo qorooyin been baloor ba saacdiye baloorka ma taqaanaan dhankaan iyo Soomaalida kale nus boos iyo boos 20 iyo dhaana moogti ninka wuxuu taagan yahay 20 baa ninkan saacdiye dumar badan hadaa saaxiib la noqoto ayaga xamda caali ka dhigayo kani wuu bar xamda dhaafay ku leedahay kani waa fuul xamda waaya jisidaas inta uma dhaafeen jisidaas inta soo dhaafeen ilaahay wadada khaldan u raacay haka soo hanuuniyaan leen dadu saareen wada qurux badan ma waayahay waxaan u gudbeynaa Mrs Djibouti waa lagu dhawaaqay maanta waa sanadka cusub waay barnaamijka xigu laakiin ugu laba qodob waay laba barnaamij waay 200 markaan gaarno asaan oo kale u baashaalaysiin 3 qodob laakiin kan xigo laba waay ilaa inta 200 ku leeyahay gaaray waayahay Mrs Djibouti lagu dhawaaqay waxa la yiri gabadha Djibouti ugu qurux badan waa la soo xulay doorashadaas waxa la 6 bilood ku dhawaad baa socotay nidaamka waa saxnaa Soomaaliya waxay isma yeelayaan qoftaanay arkeen afkay furteen commentiska u guud galayna comments qaybta koobaad marka Miss Djibouti maxaa laga yiri gabadhan waxay leedahay hadaan Djibouti tago aniga caadi ali ayuma Mrs Boosaaso ma iska noqdaa quruxdii waa taasaa qof kulba iska sheeganaya adiga Miss Boosaaso cidi ka ma xigto Miss Gaalkacyo Mrs Waaberi Mrs Beel walba cid nin walba meesha iska soo xarxarto masaan ayaa quruxdii Djibouti lagu doortay ku leeyahay fawda caadi ah waxaanay Idris Alteso waniga barnaamijka soo dhigo meeshin gareynaya Mrs Galmudug oo 3 jeer soo kuftay ayaa qoftaan 100% ka qurux badan quruxdu waa qalbiga hadaa maqashay waa tana ayadoo sawir ah Djibouti naga ma xishoori wallahi waayahay qofka haduu mar cirid as leeyahay qurux waa ka dheer tartanka orodka ma ka qayb gali rabtaa marka madaxweynaha ma adeer waa macna 4.5 quruxda ma amaan siisan walaalayaal waa mid garaacdeen aga wallahi waa la beed garaac qurux markaan oo kale reexa marka waxay dhahaan cirka roob ku ogtahay abawta kutubi caadi ah waa subxaan Djibouti raalli ahaada kaftan way jecelnahay walaalaheen waa reer Soomaali san waa reer kumid iska dhibadeen laas reer Djibouti madaxa noo saarateen gabadh walaashan madaxa noo saarantay marka waxaan leenahay force Djibouti always anaga Djibouti aan la jirnaa madaxa noo saarantiin kafta kana mar walba waa furiye waayahay barnaamijkii aragtida dadweynaha oo maanta meelo fara badan maadaama cabaar ina ka baqnaa aan meelo fara badan ka istaagay intaasan kusoo gabagabeynayaa Miss Djibouti iyo saaxiibka Usman Ozi iyo waliba groupka liftiga aadan u wada salaamaya liftigaasna waxaan leeyahay war soo noqdo in kaar Allah idinku riday barnaamijkii intaas kusoo gabagabeynayaa hadii aan ugu cusubtahay subscribe taada waa dhiirigelin like taada waa codsi commentigana fikirkaaga ugu wanaagsan inta ku mid ah barnaamij kale mid ah wasiir Karim Abdi Asmaan Soomaali Shalmo idin leh jaw